afartan iyo laba sannadood ayaa qadaafi hor taagnaa ummadda liibiya bal waxaa sawirataan xasan sheekh 42 sano maxaa dhaclaa horta wax kale dee hadda iminka waxaa lagu haystaa waa 3 sanaan maranaya soo qaylada oo dhami waa 3 bilood waxaad sawirataan 42 waa iska fara badanahay mararka qaar baan reer koonfur galbeed noqdaa laba ceel baa ku yaala koonfur galbeed oo gobolka Bokool la yiraahdo ceel waxa la yiraahdaa ceelka Saajo ceelna waxa la yiraahdaa ceelka Garasweyne waa marka xudur lagu dhow yahay war Shariif in yar loo jiro maba joogaan reer Bokoole marka laba ceel baa ku yaal marka ceel Saajo la yiraahdaa waxa lagaga cabaa wadaanta oo gacantaad ku soo darsanaysaa biyaha ceel Garasweyne la yiraahdaa waa u dhow yahay 20 xarig baa lagaga cabaa inaad ka soo cabto waxa xarig guriga yaala intaad isku xidho weynaad geliso labadii qole ee kala deganaa meesha faanay waxay yiraahdeen qoladii Garasweyne ee 20 ka xarig ku cabi jirtay 20 mitir biyo u socon jirtay biyaha iyaga idin ka fiican oo idin ka nadiifsan 20 mitir dhulka hoostiisa waxay yiraahdeen war waa dhibaato tan meedinka noolba muruqyadii waa idin go'ay biyo ma heshaan annagu halkan aanu ka cabnaa sida balliga oo kala dee marka qoladii waa qolada diktatoriyadda iyo doorashada dadban iyo waxa ka shaqeeysan su'aalo soo qaadanaya moogtaa marka qoladii SJB halkan ka cabi jirtay xoolahoodu waxay cabaan saacada koowaad gelin horeba kuwana caawa ceelka ka taga ila waa ceel dhulka laga soo qodayo biyaha qoladii reer Saajo waxay yiraahdeen faani mayna waa ducaynayna aamiin dah misalan aamiin labadeenaba ilaahay ceelkooda ha ku rido reer Bokool waa mucjiso labadeenaba ilaahay ceelkooda haddaad ka lagu rido markiiba lugtaad kala soo baxaysaa laakiin ceelka dulka ugu dheer hadii lagu rido oo dhimata doorasho dadban iyo dimuqraadiyad la'aan iyo wixii aan soo aragnay inaan ku soo noqono waa Garasweyne wey waxaan leeyahay dadka u ololaynayana ilaahay ceelkooda waxaan ku darayaa faa'iidada barnaamijkani leeyahay faa'iidadu leeyahay waxay tahay halka ka sheegay bal waxaa sawirataan wasiirada oo Bashiir iyo Maxamed iyo Fiqiyo 22 sano wasiiradiina oo subax kasta idin qodbadeeya maxaa dareemi lahayd iyaga laftooda daali lahaa dibaan ku waridu ku meedaan daali jirin finta una caane bay dhalan talyaanigu finta una caane dad soo hortaagno qof kale ma dhasho qof kale ma soo noolaado qof kale xil ma qabto qof kale damac ma yeesho waa intii dimuqraadiyaddu taasay faa'iido ka tahay 5 sano 4 sano ka bacdi waxaad oranaysaa we need change isbedel dabadeedna waa fresh bahalka maska la yiraahdo dawladnimaduna waa sida maska waxa la yiraahdaa hadii aanu xuubka iska ridin wuu dhintaa xuubka Soomaaliya inuu xuub dhacsada maska hadii aanu xuubkaas iska saarin u dhimanaya dawladnimaduna waa sidaas bal u fiirsada dhammaan dawladaha dumay waa kii xukunka waa kii dimuqraadiyadda diiday 42 sannadood ayaa qadaafi hor taagnaa ummadda liibiya bal waxaa sawirataan xasan sheekh 42 sano maxaa dhaclaa horta wax kale dee hadda iminka waxaa lagu haystaa waa 3 sanaan maranaya soo qaylada oo dhami waa 3 bilood waxaad sawirataan 42 wax aan aqliga bani aadamka qaadan karin wadad inala mida wadad damac leh marka faa'iidadu diktatoriyaddu way dumisaa dawladaha diktatoriyaddu way dumisaa Yemen taga Suudaan taga Liibiya taga Suuriya taga meel kasta oo qof sida dhagaxa iska soo taagnaa u dintay waxa kale oo la yiraahdaa nabadda peace and democracy Soomaha wadamada dimuqraadiga ah ma dagaalamaan weliga arki maysid laba wadan oo dimuqraadi oo dagaalamaya ma aha inaanay dana kala lahayn laakiin wuxuu isleeyahay haddaad hadda gasho dagaal
doorashada dambe dhacaysa dhaqaalaha hoos u dhacaya shacabka ka tagaya shaqo la'aan baa dhacaysa dabadna dadka ku ridaya marka way kala baqaan laakiin diktatoriyadda dagaalkii labaad waxa riday diktatoriyin dagaaladan socda diktatoriyin ruushka iyo ukraine waxa socda oo dhan حتى الدولة إيران أو قاعدتي برنامج كإسلامي جاهي ديمقراطية دي دور شدة وكمار مويد مركل لبعضن أجندايس هي قف إسكافر ديا إيو إن أدوك دورته دقمة هذا قبل كاجا ستيت كاجا مدح هذا هلا مركا أن كسر دوانو ماشي كلي إرد اللي يرادو أي سياسة كسر جلي كرتو وي you don't need not أضي بريدو you don't need inaad qof soo barido waxay samaynaysaa tusaale ahaan hargeysa doorashadii ugu dambeysay dhacday 20